Assalaamu calaykum. Warbixintan waxaa ku maqli doontaan hadduu alla yiraa sidee loo sumeeyey madaxweyne Ibraahim Traore shirqoolkii ugu halista badnaa. Yaa soo maleegay shirqoolkan, yaa loo adeegsaday inay fuliyaan, iyo xogo kale ku saabsan kaartadii cajiibka ahayd ee madaxweyne Traore iyo gacanyarayaashiisa ay u degeen basaaska Faransiiska ee isku soo dubariday shirqoolkan. balse intaan u gudagalin faahfaahinta, hadday tahay markaagi kuugu horreysay ee aadna soo booqatid, sabskaraib saaro janalka, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada xiisaha leh ee aan halkan kusoo gudbino. mahadsanidin. Madaxweynaha Burkina Faso Ibraahim Traore wuxuu ku sugnaa saldhig ciidan oo ku yaal bannaanka Ouagadougou oo ah caasimadda dalkaas. Wuxuu halkaas kulan kula lahaa saraakiisha ciidamada militariga si ay uga wada hadlaan qorshaha howlgal laga fulin lahaa bariga dalkaas. Madaxweyne Traore, saraakiisha militariga iyo gacanyarayaashiisa waxay hoos fadhiyeen geed camba ah oo weyn, waxaana loo keenay shaax rinji ah. Shaaxa waxaa qaybinayay mid ka mid ah askarta ciidamada, wuxuuna kow ka bilaabay oo uu u soo shubay madaxweynaha. Sida ay goobjoogayaal la hadlay warbaahinta oo diiday magacooda in lasoo xigto xaqiijiyeen, madaxweyne Traore ayaa dhoola caddeyn ku qaabilay koobka shaaxa ee uu askariga u soo taagay, waana uu ka guddoomay. balse madaxweyne Traore oo isla markiiba shaki uu galay ayaa go'aansaday inuusan cabin shaaxa. Wuxuu xiriir dhinaca indhaha ah la sameeyey askarigii shaaxa u keenay, sababtoo ah wuxuu ka dareemay cabsi iyo in uu wax qarinayo. Dhinaca kale, Korneel Yaya Kanote oo ka mid ah saraakiisha militariga Burkina Faso ayaa goobta fadhiyey. Wuxuu isla markiiba cabay koobkii shaaxa ee la siiyey. Wuxuu eegay madaxweynaha isagoo ku leh, fadlan mudane madaxweyne, cab shaaxa yuusan kaa qaboobin, shaaxu waa fresh. balse madaxweyne Traore wuxuu uga jawaabay dhoola caddeyn, kadibna wuxuu dhigay koobkii shaaxa ahaa ee la siiyey. Wuxuu saaray miis yar oo u dhowaa. Waxaa mar qura isbedelay jawigii goobta. Dhinaca kale, kabtan Sanogo oo fadhiyey dhinaca dambe ee madaxweyne Traore wuxuu la socday wax walbo. Wuxuu dareemay in koobka shaaxa ay siro halis ah ku hoos duugan yihiin. 2 saac ka hor, madaxweyne Traore inta uusan ka soo qayb galin kulankan, gaar ahaan intii uu ku sugnaa aqalka madaxtooyada, wuxuu laamihiisa sirdoonka ka helay fariin ahayd in loo diyaariyey shirqool lagu sameynayo. Waxaa kaloo loo sii sheegay in uu ka digtoonaado cabidda shaaxa iyo cabitaanada mar walba uu ka qayb galayo shirarka iyo kulamada ka baxsan madaxtooyada. Sidaas darteed, madaxweyne Traore wuxuu ahaa mid dhiifoon, balse wuxuu doonayay inuu ogaado si uu bannaanka ugu soo saaro khiyaanoolayaasha ku dhex jira maamulkiisa ee u shaqeeya shisheeyaha, gaar ahaan gumaystaha Faransiiska. Haddaba aan dib ugu laabano sheekadeenii koobka shaaxa. Madaxweyne Traore wuxuu u soo jeestay Korneel Kanote, wuxuuna ku yidhi sidan: waa wax la yaab leh runtii, imise wax ayaa ku dhuuman kara shay aad u yar sida koobkan oo kale. Korneel Kanote ayaa dhoola caddeyn u muuqatay qosol gariir. Wuxuu ugu jawaabay, waa quruxda shaaxa mudane madaxweyne. Intaas kadib, waxaa fadhigii ka istaagay madaxweyne Traore isagoo indhaha ku gubaya Korneel Kanote, wuxuuna weydiiyey su'aashan: Korneel, ma ku kalsoon tahay dadka noo shuba shaaxa? Korneel Kanote oo dhidid badan uu ka da'ayo, cabsi xoogganna ay ka muuqato, ayaa indhaha mirig mirig ka siiyey, wuxuuna yidhi, haa mudane madaxweyne. Kadibna Traore ayaa ku yidhi, hagaag. Wuxuu u jeestay dhinaca mid ka mid ah gacanyarayaasha Kanote, wuxuuna u tilmaamay koobkii shaaxa isaga loo keenay ee uusan weli cabin, wuxuuna ku yidhi, fadlan adigu ma cabi kartaa? Kaalihii Kanote oo jahwareersan ayaa koobkii kor u qaaday. Kanote indhaha ayuu taagay, wuxuuna ku yidhi, maya maya, sug ha cabin. Wuxuu sii daba dhigay, ma wanaagsana in koobabka la wadaago, waxaa ka dhalan karta nadaafad darro. Intaas kadib, madaxweyne Traore ayaa hadalka qaatay, wuxuuna ku yidhi, Korneel, nadaafad mise sun? Dhammaan saraakiishii iyo dadkii goobta joogay afka ayaa juuqda gabay. Kanote wuxuu isku dayey inuu isdifaaco, wuxuuna ku hadaaqay sidan: mudane madaxweyne, cid halkan joogta oo ku sumayn karta ma lahan. Madaxweyne Traore wixii markaas ka dambeeyey, dulqaadka ayaa ka dhammaaday, wuxuuna la soo baxay qooneyihiisii uu saraakiisha kula xiriirayey. Wuxuu saraakiishiisii ku yidhi, ii keena isaga. Yacni wuxuu dalbaday in loo keeno askarigii koobka shaaxa u keenay. Daqiiqad gudaheed, 2 askari ayaa iyagoo garbaduub u wada waxay u keeneen askarigii dhallinyarada ahaa ee koobka shaaxa u shubay. Waxaa ka muuqatay cabsi xooggan, aad ayuu u gariirayey. Waxaa jeebkiisa laga soo bixiyey dhalo aad u yar, waxaana ku dhegganaa warqad aad u yar
oo ay ku qornaayeen xarfahan FXT42. waa sun dareere ah halis ah si dhaqso ahna qofka u dili karta, waana midda koobka shaaxa loogu soo daray madaxweyne Traore. intaas kadib madaxweyne Traore wuxuu u jeestay dhanka Cornel Kanote wuxuuna ku yiri, adigu waad i casuuntay, adigaana soo diyaariyey iguna dhahay cab marka hore, ma waxaad mooday in halkan aan soo gaari lahaa haddii aan cabayo koob walba oo la ii keeno? Cornel Kanote wuxuu ku jawaabo ayuu garan waayey. madaxweyne Traore oo la sii hadlayey qaa'inkan dhabarka ka toogtay ayaa ku yiri, doqomada adiga oo kale ah awood uma lahan inay u adeegaan dalkan iyo dadkan. waxaad doonaysaan inaad iibsataan dalkan iyo dadkiisa, kana iibisaan shisheeye. madaxweyne Traore ayaa bixiyey amar lagu soo xirayo Cornel Kanote, weliba wuxuu amray in si qarsoodi ah oo aan cidina ogeyn loo xiro. si gaar ah wuxuu u amray in lagu xiro xabsi ku yaala dhulka hoostiisa. baaris iyo ciqaab dheer kadib, Cornel Kanote wuxuu diiday inuu hadlo oo uu wax xog ah bixiyo. wuxuu ku adkaystay in uusan wax shaqo ah ku lahayn shirqoolka la doonayey in madaxweynaha lagu sumeeyo. intaas kadib, kabtan Sanogo oo gacanta ku wata buug yar oo madow ayaa soo galay qolkii su'aalaha lagu weydiinayey qaa'in Kanote. buugga uu watay waxaa laga helay askarigii dhallinyarada ahaa ee madaxweynaha koobka shaaxa sumaysan u shubay. Sanogo wuxuu furay buuggii, wuxuu Cornel Kanote ku yiri sidan, qoraalkan waa adiga soo maahan, waan soo hubinay adiga ayaa qoray. qaybo ka mid ah buugga waxaa ku qornaa magacyo qarsoodi ahaa, taariikhaha kulamo dhacay iyo liisaska lacaga la bixiyey. waxaana ku jiray lacag $10,000 ah oo la bixiyey maalin ka hor shirqoolkii iskudayga sumaynta. laakiin hal magac ayaa marar badan ku soo noqnoqday buugga, wuxuuna magacaas ahaa laashakaal. inta uu Sanogo wareysanayey qaa'in Kanote, madaxweyne Traore wuxuu kala socday shaashad, wuxuuna kaaliyaashiisii weydiiyey inay horay u maqleen magaca laashakaal. kaaliyaashiisa ayaa ugu jawaabay, haa madaxweyne, hadda ka hor ayaan mar maqalnay, waxaan ka maqalnay kool ay sirdoon ku wada hadlayeen oo ciidamadana sirdoonka ay basaaseen. madaxweyne Traore in cabaar ah ayuu aamusnaa, wuxuuna yiri sidan, dabcan shirqoolkan waxaa ka dambeeya xoogag shisheeye, Kanotena waa gacan la adeegsaday. maalinkii xigtayna madaxweyne Traore ayaa kulan qarsoodi ahaa isugu yeeray raggiisii oo ugu kalsoonida badnaa, gaar ahaan Songo iyo saraakiil ka tirsan qaybta la dagaalanka basaasiinta iyo sidoo kale khabiir ku xeel dheer arrimaha cyber security-ga. madaxweyne Traore wuxuu miiska soo saaray buuggii, wuxuuna ku yiri, magacan laashakaal waa maskaxda ka dambeysa shirqoolka, Kanotena wuxuu ahaa qaa'in la adeegsaday. marka hadda waxaan u baahanahay inaan gacanta ku soo dhigno basaaskan shisheeye. khabiirkii u qaabilsaa dhinaca kombiyuutarada ayaa bilaabay inuu ka shaqeeyo sidii uu u dabageli lahaa wicitaanada iyo taleefanadii buugga ku qornaa. nasiib wanaag, hal fariin ayaa la helay, waana midda ku hogaamin doonta in lasoo qabto laashakaal. fariintan la helay waxay ka timid moobeel hal mar keliya la isticmaalay, waana moobeelada ay caanka ku yihiin ama ay isticmaalaan basaasiinta. fariintuna waxay u qorneed sidan, koobka shaaxa ee berri kadib waxba ma arki doono, waxaana laga soo diray meel 2 kiiloomitir u jirta qonsuliyadda Faransiiska, waa caasimadda Wagadugu. kabtan Songo ayaa intaas kadib yiri, weli wuxuu joogaa magaalada. madaxweyne Traore ayaa ugu jawaabay, haddii uu magaalada ku dhuumanayo, dabagalka waa inuu hadda bilowdaa. sheekadu waa isbedeshay, hadda waxaa lagu daba jiraa sidii loo soo qaban lahaa maska ugu weyn laashakaal ee isku soo daba riday shirqoolka sumeynta amaradana bixiyey. madaxweyne Traore ma doonayn inuu sugo weerarka xiga ee kusoo fooda leh, markan isagaa weerar ah. khabiirkii dhinaca saybarka ayaa raacay raadadkii ugu dambeeyey, gaar ahaan moobeelkii halka mar fariinta laga diray. dabagalkana wuxuu gudaha u galay dhisme dabaq ahaa oo qadiimi ah, kuna yaala xaafadda ay degan yihiin ganacsatada shisheeye, diblomaasiyiinta iyo sidoo kale shaqaalaha ka howlgala hay-adaha caalamiga ah. dhismuhu ma lahayn kaamirooyin ku dhegan jaranjarooyinkiisa iyo bannaanka. intaas kadib, kabtan Songo ayaa madaxweyne Traore u sheegay in laashakaal uu leeyahay ilaalo adag, uuna yaqaano sida loo dhunto. madaxweyne Traore ayaa ugu jawaabay, hagaag, hadday sidaas tahay uma raadinayno sidii askar ee waxaan u dabagelaynaa sidii tuug. wuxuuna amray fulinta qorshe qarsoodi ah oo loogu magac daray howlgalka Galaas E. waa howlgal aan la ogoleen in la isticmaalo dharka ciidamada, seeriga iyo wax walboo muujinaya shaacin.
meel kastana waxaa la dhigay ilaalo isku ekaysiinaysa shaqaalo ka shaqeeya nadaafadda, kuwa iibiya khudaarta iyo sidoo kale shaqaalaha qaada cuntada dilifriga. askari ka mid ahaa ciidamada daacadda u ahaa madaxweyne Traore ayaa iska dhigay inuu dayactirayo dhismaha, wuxuuna si qarsoodi ah kaamirooyin yaryar ugu dhex qariyey jaranjarooyinka guriga uu deganaa laashakaal. maalinkii saddexaad kaamirooyinka ayaa soo qabtay nin aad u dheer, xiran ookiyaalo madow, sidoo kalena wata koofiyad. ma wadan dukumenti diblomaasi markii baaris lagu sameeyey. ninkan wuxuu deganaa qolka 3B, waana qolka uu galay raadka moobeelka halka mar la isticmaalay. wuxuu ahaa nin aad u taxadar badan oo waqtiyo kala duwan aha si aysan wax raad ah u soo gelin. gaari uu mar isticmaalayna dib dambe uma isticmaali jirin. laakiin maalinkaas saddexaad wuxuu sameeyey qalad weyn oo horseedi doona in uu soo galo gacanta Traore. haddaba muxuu ahaa qaladkaas? wuxuu mid ka mid ah maqaayadaha bannaanka ku yiilay ka dalbaday raashin. madaxweyne Traore markii loo sheegay xogtan aad ayuu u farxay una dhoola cadeeyey, wuxuuna yidhi waaba jaanis cuntada annaga aan u geyno. habeenkaas kabtan Songo wuxuu isku ekaysiiyey cunto geeye, kadibna gacanta midig waxa uu ku soo qaaday raashinka, midda bidixna qalab yar oo wax lagu basaaso. wuxuu garaacay albaabkii qolka uu deganaa laashakaal. laashakaal markii uu albaabka furay wuxuu si taxadar leh u eegay ninka raashinka u keenay oo ahaa kabtan Songo oo isku soo ekaysiiyey cuntogeeye. lama uusan hadlin, wuxuu siiyey lacag kaash ah. raashinkii ayuu ka qaatay, kadibna albaabka ayuu xirtay. qalabkii uu kabtan Songo ku watay gacanta bidix wuxuu duubay wax walba oo qolka yiilay. codkii laashakaal, dhaqdhaqaaqiisa iyo xitaa tallaabqaadkiisa ayuu duubay. wuxuuna dib ugu laabtay qolkii howlgallada ee madaxtooyada. intaas kadibna codkii uu Songo ka soo duubay qolka laashakaal waxaa la mariyey qalab wax lagu basaaso. kadibna waxaa soo baxay magaca qofka rasmiga ah ee codkan leh, wuxuuna noqday Alexander Morel. waa sarkaal sirdoon Faransiis ah kan howlgala galbeedka qaaradda Afrika. sidoo kale xogtu waxay sheegaysay inuu howlgab yahay sarkaalkan, balse gudaha sirdoonka Faransiiska waxaa looga yaqaanaa magaca laashakaal. waana ninka bixiyey amarka sumeynta ee lagu dili lahaa madaxweyne Ibrahim Traore. qabashadiisa ma ahayn mid sahlan. ma haysan baasaboor diblomaasi oo gacmaha ka xiri kara laamaha ammaanka Burkina Faso. sidoo kale haddii dharaar cad la qaban lahaa, reer galbeedka ayaa marmarsiyo ka dhigan lahaa in la afduubay. balse madaxweyne Traore iyo raggiisa waxay dejiyeen xeelad la yaab leh si loo qabto ninkan. madaxweynaha ayaa soo jeediyey inay shaaciyaan inay qabanayaan kulan casho gaar ah oo ay imaan karaan marti muhiim ah oo keliya. laashakaal marka uu maqlana wuxuu samayn doonaa iskuday shirqool dil oo kale. waxaa la diyaariyey xafladii cashada, waxaana la dhigay dabeennadii lagu soo xirigelin lahaa laashakaal. madaxweynuhu wuxuu shaaciyey waqtiga iyo habeenka aqalka madaxtooyada lagu qaban doono xafladda cashada, waxaana lagu casuumay marti muhiim ah oo keliya. ma jirin warbaahin lagu casuumay iyo liis dadweyne. wararkana si qarsoodi ah ayaa loogu faafiyey ilihii loogu talagalay si uu u gaaro laashakaal oo loo dhigay dabinkan. Songo iyo kooxdiisana waxay si dhow ula socdeen dhaqdhaqaaqa ka socday qolka 3B ee Morel uu deganaa. inkastoo aysan arki karin isagoo soo galaya ama ka baxaya, haddana waxay arkeen in moobeelkiisii markale la shiday. wuxuuna fariimo u diray meelo kala duwan oo gudaha magaalada Waagaduuga ah. wuxuu ahaa iskuday kale oo shirqool si loogu dhameeyo ama loogu dilo madaxweyne Ibrahim Traore. laakiin markan Traore lama ugaarsanayo ee ugaarsadaha ayaa lagu maqan yahay. dhinaca kale, gudaha jikada madaxtooyada shaqaalihii cunto karinta dhammaantood waxaa lagu bedelay ciidamada sirdoonka ee la dagaalama basaasiinta ajaanibta. waxay soo xirteen dharkii cunto karinta. dhammaan qalabka cuntada ee jikada yiilay sida koobabka shaaxa dhammaan waa la baaray. waxaa lagu rakibay mikrofoono qarsoodi ah. sidoo kale miiska cashada hoostiisa ayaa lagu rakibay, taasoo ka dhigan in dhaqdhaqaaq kasta lala socday. saacaddu markay ahayd 7:15 fiidnimo waxaa bilowday cashadii, waxaana qasriga madaxtooyada soo gaaray martidii. waxaana si gaar ah loo soo xulay 4 ka mid ah martida. waxay ka mid ahaayeen gacanyarayaasha madaxweynaha, waxayna ahaayeen kuwo si dhab ah ula socday wax walba. Traore wuxuu ku fadhiyey kursigiisa, wuxuuna soo xirtay dharka hidaha iyo dhaqanka Burkina Faso, mana wadan dareeskiisii ciidanka ee uu caanka ku ahaa. kabtan Songana wuxuu ku sugnaa qolka koontaroolka ee laga hago kaamirooyinka. wuxuu eegayey shaashad walba, gaar ahaan dhaqdhaqaaqa qolka 3B. waqtigaas wax dhaqdhaqaaq ah kama socon.
wax yar kadib kabtan Songo wuxuu arkay nin shax wata oo aan shaqaalaha ka mid ahayn. Songo wuu istaagay, wuxuu ilaaladii weydiiyey cidda uu yahay. Waxaa la soo dhoweeyey kaameradihii. Ninku wuxuu u soo socdaa dhanka qolka cashada ee uu madaxweyne Traore ku sugnaa. madaxweyne Traore wax kasta waxa uu kala socday qalab dhagta ugu jiray. Ninkii wuxuu dhigay koobkii shaaha, kadibna waa uu laabtay. balse waxa uu yeeray madaxweyne Traore oo ku yiri, ma jeclaan lahayd inaad shaah la cabto madaxweynaha? Ninkii waa uu labalabeeyey. Intaas kadibna madaxweynaha ayaa soo istaagay, wuxuuna ku yiri, waqti badan ayaa socotay Aliskandar, laakiin waxaad samaysay hal qalad. Intuusan hadalka dhammaynin madaxweynaha, ninka ayaa isku dayay inuu la soo baxo bir yar oo af badan, laakiin isla markiiba qolka waxaa soo galay ilaaladii madaxweyne Traore. sidoo kale kabtan Songo ayaa qolka soo gaaray, waxaana ninkii la dhigay dhulka. madaxweyne Traore ayaana ku yiri sidan, oo qori ma wadan miyaa, oo haddana ma sun iyo qorshe kale? ma waxaad u malaysay in khiyaanadii hore ay mar labaad kuu shaqaynayso? Morel Mala Shakaal oo aad u caraysan ayaa ku hadaaqay sidan, adow ayaad samaysatay, waxaadna faraha la gashay awood aadan iska difaaci karin. Traore ayaa ugu jawaabay, waan ka badbaadayaa. Intaas kadib wuxuu amray in la xiro, islamarkaasna aysan ogaanin warbaahinta, waxaana lagu xiray xabsi kale oo dhulka hoostiisa ku yaal. wuxuu ahaa iskudaygii labaad ee isbuucyo gudahooda la doonayey in lagu qaarijiyo madaxweyne Ibraahim Traore. haddaad ka heshay warbixintan, like saar muuqaalka si uu meel dheer u gaaro, annagana ay dhiirigelin noogu noqoto. mahadsanidin.